intii uu socday qorshahan ka hortagga askariyeynta carruurta oo muddo dheer ka hor soo bilowday hormoodna ay ka ahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo oo kaashanaysa taliskeeda xoogga dalka waxaa laga gaaray horumar aad u sarreeya taasoo suuro gelisay in haba yaraatee aan wax askaray carruuriya aan la qorin askarta laga qorin korbeero badan baa la soo sameeyey oo qeybaha ciidanka uu degan yahay marna laguma soo arag askari oo da'yar ah laguma soo arag tababaraa la bixiyey weli ma dhicin nin da'diisa hooseysa in tababarkaas uu ka qayb galay annagoo raacayna shuruucdii hore looga soo saaray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mid caalami ahba waxaan ka soo horjeednaa cid alla ciddii fikraddaasi wadata oo ah in carruur da'yar ah la askareeyo anigoo ka duulayo dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigoo ka duulayo heshiisyada caalamiga ah qaramada midoobay anigoo ka duulayo danta carruurta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ana farayaa taliyaasha ciidamada xoogga dalka in gebi ahaan la mamnuucay horena loo mamnuucay haddana la mamnuucay carruurta 18 da'dood ka yar tahay in la askareeyo nimanka nabaddiidka ah askareynaya carruurta yaryar oo dagaalka gelinayo waxaan u sheegaynaa inaan ciidamadan xoogga dalka ay faran yihiin inay soo badbaadiyaan carruurtaas si guryahooda iyo iskuulahooda looga celiyo